noloshayda walaalayaal oo faraha iga qaada waa idin barya walaashiina ahay barya iga tahay ma u dul qaadan kari maalin walba in la jijido ma u dul qaadan kari waxaan ahayn in la iga dhigo ani gabar muslimada ahay diin islaamka ku abtirsato diin lagu dhalay soo baratay ku soo dhaqantay intaana kula soo ekaatay ilma adeeryaal ilaahay baa idinku dhaariyay hal maalin xataa aniga gabdhaha Soomaaliyeed sameynaa mi aragteen weliba iskaba dhaafay xataa iguma soo dhaco maanta aniga inta surwaal xirtayna magaalada aado dhaqankayga saaw ilaashada kaliya diintayda waa aqsam billah in samaanta jirnaan ku dhahay saa aniga isku ilaaliyo qof isku ilaaliyo haduu jirana qof dad yar ay yihiin oo tirsamo kaas aniga sharaftayda iyo sumcadayda waxaan u sidaa ama maanta magaca xambaarsanahay magac lagu kaftami kara ma ahan magac lagu dheeli kara ma ahan magac lagu ciyaari kara ma ahan waa iga maleeyahay inaan maaragtay aan gabarnimadayda iyo hooyanimadayda iyo sharaftayda iyo midida marnimo intaba aan ilaaliyo taas ka soo gudub haddaan guursado xataa hadduu qof muslim yahay oo laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ku abtirsanayo oo yahay diin iyo cilmi ma jirto mise Soomaaliyeed tiin waxa dhahaysiin qofkan waa cadaan adiguna waxa tahay madow ma leedihin baayo idinka cunsurinimada dhan idinka inaga soo gaaray ani haddaan guur soo bareero oo rabo inaan guursado xilli xaadirkaas oo iga cali kartaa malahan ya laakiin waxa u baahanahay in aad wax walba ogaataan sida wax u jiraan sida wax yihiin ana insha Allah idin soo bandhigi doono waxaad ku farxdin aan nagula imaanaya oo idinka dhan idinku aad ku farx yani idin farxad gelisa waxa adiga ka murugoonayso ama ku dhibaayo ma rabo inaan kula wadaago laakiin nafsadaada saad jeceshahay anigana ila jeclaa sida adiga nolol u rabtid anigana ila rab sida rabtid inaan u faraxdid anigana ila rab way kula mid ayaan ahay waxaan u baahanahay khayrkaygina wax la qaybsado laakiin danta iyo daruufta ay ciilayso oo because maanta inta hore u arkay iyo intaan maaragtay dib aan la soo kulmay aniga ilaahay weynaya oo soo marka gabaray waxa rabtaa inaad oolaad dhashid waxa rabtaa inaad qof nolol qaybsatid waxa rabtaa inaad noloshaada ay noqoto mid aad u qurux badan nolol fiican aad ku dhamaysid sida adiga rabtida aniga rabaa sida adiga daneynaysa aniga daneynaa sida rabtid inaad u noolaataa rabaa in u noolaado balse hadaa khayrkayga ay ii muujinayaan yani cunsurinimada kii ma ahan cunsurinimada waxaa ka mid ah inaad qof walaalka dhibaatadiisa ku aydi soo marka saa adii nolol u rabtaa anigana u rabaa xisaabtaas ku dirso gabar walba Soomaaliyeed waxaa leeyahay adiga iga soo qabo walaal sida rabtid inaad adiga u noolaatid anigana u noolaayo inaan u noolaado sida farxdid arabaa inaan anigana u farxo miyaan qeyrkayga waxba la qaybsan karin haddii ay nolosha kaliya ay tahay inaan aho midabkayga kaliya bartilmaamsana haddana ii hiilinaynin dadkaan ka dhashay sooma dantu ima badaysiina ajnabi raasado su-aasha adaa ku weydiina jawaabta commentiga ku soo qor haddii aniga aan qof noloshayda ku faraxsan sida ahay ku qanacsan marna idareensiinaynin in aha qof kale dhaantaala haddii aan helo ma ku farxaysaa mise waa ku naxaysaa jawaabta commentiga ku soo qor haddii aan ahay gabar Soomaaliyeed shalay caafimaad qabtay maantana dhibka ku dhacay anigoona geed iyo arag kala u raacanaynin oo idinka shaqadiina aan ku jiray hadduu dhib igu dhacay miyay u caanaysaan mise way igu cadaabinaysaan aniga nolol u baahanahay nolosha u baahana waxay tahay inaan kelinimada ka baxo kelinimada ka baxa markaan ku leeyahay kaliya maahan inuu aniga aan guursado laakiin walaalkayga ama walaashay ama hooyaday ama ilmahayga maanta hadday ila joogi lahaayeen kelinimada waan ka bixi lahaa laakiin shakhsi kula oo maanta hadduu wuxuu rabo helaynin
samaysan karaynin guri cidlaa degan yahay caawinaad u baahan yahay waad dareemi kartaan xaaladda maalin maalmaha ka mid ayaa waxaan wacay qof dariskayga waxaan ku dhahay maanta roob ayaa da-ayo dukaanka carabka hilib uga baahanahay because markuu roobka da-ayo ma bixi karo kursiga ma qaban kari ay kaala walaal hilibkaas iisoo iibi ama bangigaagan kugu soo shubaya lacagtii kasoo bixi iisoo iibi wuxuu igu dhahay iga raadaaho waqtigayga qaaliga inta hilib suuq ka soo gado kuguma soo beerdarey kari waa qofkii igu dhawaa qof walaala qof saaxiiba waxaan ku yeeray okay wiil Shpandrov joogaa wacay magaala Shpandrov la dhaho asagiya waxaan ku yidhi bookaay adigana hilib iisoo qaad haa imay midna inuusan dhihin tareen hore ka soo raacay hilibkii isoo iibiyay wuu ii keenay markaasaa waxaa isira maantay haddii ay lugahaada ficnaan lahayn fariisooy qofkaas sidoo maanta ku dhahay inuusan ku dhihi lahayn ee asagoo dhareerayo kuu keeni lahaa laakiinse waxaa i ciilayso danta iyo daruufta danta iyo duruuftana mar walbeeto wax walbeeto waad ka filan kartaan alxamdulilah ilaahay wuxuu iga dhigay qof iimaan leh dulqaad badan wax walbana u samri karto dadka yaqaano marka walaalayaalow adduunyadan waa laba beri qofba maalintiisa waxaad arkaysaa qof lacag haysto hanti haysto haddana faraxsaneen qof waxaa arkaysaa faqri ah faqiirnimo meesha ugu dambeysa ah haddana qalbiga qani ka ah qof waxaa arkaysaa caafimaad qabo lugihiis qabo ordaayo haddana qalbiga ka oynayo qof waxaa arkaysaa lugaha iyo gacmaha toona lahayn laakiin qalbiga ka faraxsan faa'iido kale soo marka waxaan nila ogeyn oo idin baryaa ha ka bixinina reaction igu qiimay walaalnimo igu qiimay inaan walaasha kaa yar iyo walaasha kaa weyn iyo inaan xataa aniga ku dhalay karo markaas waan ahay koley xaqiiqda jirto waad arki doontaan insha allah laakiinse wiil iyo gabarow sida adiga wiilow rabtid anigana rabaa gabaray sida adiga rabtid anigana rabaa awlaada rabtaan inaad dhashaan aab iyo hooyo noqotaan alxamdulilah walada ay joogtaa awlaad kalena u baahanahay weliba waan jeclaa lahay anigoo saana inuu gabar ilaahay igu irsaaqo hadday suurtagal ilaahay uu ka dhigo marka qof hamigaas lahaan ahay maxaa markay nabdiiga tiri maxaad igu kalifaysaa in aan guurka soomo maxaa igu kalifaysaa inaan qeyrkii wax la qaybsamo because adiga inga dilaayo hadaad janaalkayga ka cusub tahay please subscribe saar lana wadaaga saxaabtada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa idin jeclahay